haddii hal maalin lagaa dhigo madaxweyne isla markaana lagu dhaho hal wax ka mamnuuc wadanka Soomaaliya maxaa ka mamnuuci lahayd qabyaaladii qoranka ka mamnuuc istii wax liira dhan naagtooda talaarko 9 sano oo gaar shareey ku jiray walaa waxa mamnuuc lahay inta shareerka iyo face mask ayaa mamnuuc lahay sababtan oo raacnaa siyeen u dilanay haddii hal maalin lagaa dhigo madaxweyne isla markaana lagu dhaho hal wax ka mamnuuc wadanka Soomaaliya maxaa ka mamnuuci lahayd waa su'aalo aan weydiinayno qaar ka mid ah dhalinyarada halkan isugu imaaday waxaad ka daawan doontaan YouTube-kayga iyo sidoo kale page-kayga Maryan Ladan Official soo dhawaada ay leedahay dhamaantiin haddii aad markii kugu horeysay aad soo boqotid fadlan subscribe-ta share-ta iyo like-ta wadhankiina sidoo kale muuqaalka haddii uu soo gaaro aragtidaada qaybta hoose inoogu soo reeb wixii aad mamnuuci lahayd adiga ahaan haddii lagaa dhigo hal maalin madaxweyne isla markaana aad dhiilayd wadanka waxaan kuma arki karo mar kale waa maasantihiin isla eegno sida uga jawaabeen dhalinyarada su'aashan aan weydiiyay soo dhawo ku soo dhawo YouTube-kayga iyo page-kayga waxa weydiinaynay dhalinyarada halka isugu imaaday su'aal ah haddii madaxweyne lagaa dhigi lahaa hal maalin isla markaana lagu dhigi lahaa wadanka hal wax ka mamnuuc jaanas ayaad u haysataa 24 saac maxaa mamnuuci lahayd qabyaaladii qoranka ka mamnuuc sababtoo ah dadkan wax dhimay wax waa qabyaalad way aad ma santaay adaa mudan maxamed su'aal weydiinayay dhalinyarada halka isugu imaaday madaxweynaha lagaa dhigay hal maalin ah haysataa jaanisa waxa ugu horeeya wadanka ka mamnuuci lahayd maxaa waa baluuda nooc walba miya baluuda mise wax gaar ah nooc walba sababta ma noo raaci kartaa sababta baluuda wax xun waay marka si aad dadka ugu mamnuuci lahayd aad ma ugu horreyn soo dhawo adigoo magacaaga ku bilaabaysa ku soo dhawo YouTube-kayga waa dhawahay magacaygu waa Fahad waa ku soo dhaweynaa su'aal ayaa weydiinayay dhalinyarada halkan isugu imaaday haddii lagaa dhigi lahaa hal maalin madaxweynaha dalka waxa ugu horeeya oo aan mamnuuci lahayd isla markaana dhileed waxa dib dambe ma u soo laabanayaan waa amarkayga maxaa waa Justin sabab waa gabar kastii wixii leeyahay wax leen dhan waa wataan oo la dambeeyay marka waxa soo dhaw mamnuuc lahayd wadanka Muqdisho dhan waa ka mamnuuc lahayd Justin wax liira dhan naagtooda talaarko 9 sano oo gaar shareey ku jiray kaasa mamnuuci lahayd Justin bis wax kale mamnuuc ayay way aad ma santahay ugu horeyn soo dhawo magacaaga magacaygu waa dhawahay magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiqaasim way Cabdiqaasim oo ku soo dhaweynaa waxa jirtay su'aalo aan weydiinayay dhalinyarada halkan isugu imaada Cabdiqaasim hal maalin waxa laga dhigay madaxweynaha dalka waxa lagu dhahay wax mamnuuc hal shay mamnuuc waxaasna waa amar madaxweynaha oo adiga ku dhawaaqday dib dambe ma soo laabanayaan waxaas maxay ahaan lahayd waxaa mamnuuc lahayd gabdhaha ashxanka Soomaaliya kuwa gabdhaha ashxanka Soomaaliya kuwa isqaawinaa anshaxumada okay noo sababay anshaxumada way badan tahay nooce macnaha gabdhaha isqaawinaayo oo qaawan TikTok soo galaayo gabdhahaas ka mamnuuc lahayd Soomaaliya waa mamnuuc hadii la gabar dambe oo qaawan ma arki kari way aad ma soo dhawo magacaaga ku dhawahay magacayga waa Tara waayahay waa ku soo dhaweynaa su'aal jirtay aan weydiinayay dhalinyarada halka isugu imaaday hal maalin waxa laga dhigay madaxweynaha dalka jaanis u yeelatay waxa ugu horeeya aan mamnuuci lahayd dhiilaad waxa dib dambe ma soo laabanayaan waa amar madaxweyne maxaa waaye diracay haddana diracna gashtan say naag dhamar dirac uga shanay bay aad u ibn isqaawina bisge saasa fiican waxa arki lahayd ma diraca mamnuuc lahayd dirac duuk ay wax kale bulshada dan u ah hadii lagu dhila mamnuuc oo bulshada dan u ah in ilaa isqaban ma kala furlaayo bismillah said way wadanka waxa laga dhigay madaxweyne hal maalin waxa lagu dhahay hal wax ka mamnuuc wadanka jaanis ah waysata maxaa mamnuuc lahayd daroogada ilaa luuska iyo macnaha qabyaalad daroogada laaluuska iyo qabyaalada sababta loo raacay sababtoo ah معناها لعقت معناها ولدن وقلت له لا لوش عينك وسي عينك وحي قلودي وكعبان دروغدنا معناها
dadka macnaha dadku isdilo daroogaas keentay macnaha hal xab xashiisha isku dilay marka intaas jaanis waysataa ina mamnuuc leh halkan iyo macnaha gabdhaha oo macnaha qaqaawan iyo mamnuuc la waxyaabo badan mamnuuc almaan la dhigaa soo dhawo magacaaga wixii waa laalaabsiin kumar deefa waayahay ku soo dhawo youtube-kayga su'aalaha dhalinyarada weydiinayay oo halkaa isugu imaaday waxay tahay haddii hal maalin madaxweyne lagaa dhigi lahaa oo lagu dhihi lahaa hal wax waddanka ka mamnuuc 24 saaca haysataa naagaa mamnuuc la sababta noo raaci naagaas yaa mamnuuc siiyeen u dilanay dumarka ama naagahaba ka soo qaaday sidaa u dhacday adiga sida ognahay waa hooyo waa walaal waa xaas walaal waa muxuu madaal imaana biya qabanay waxa arkay xafdadii isguwe fiiri marka dumarka waxa mamnuuc leh dumarka nimanka tawartad wax yaree dumarka waay ana hadda madaxweyne noqolaa warigi dhamaantii waa azuurinaad tegile bada galaashad ali marka maxaa guursanaysaa aniga bisad shadwa magacaaga adaway wixii Allah wasiirka darawada cadaaladana mo jebo waayahay su'aalo waxaa jirta dhalinyarada weydiinayay lacala waxaa laga dhigay madaxweyne hal maalin ay jaanis haysataa waddanka maxaa ka mamnuuc leh hal waxa waddanka ka mamnuuc koo waxa mamnuuc leh darawada qabyaalada iyo waxyaaba maandooriya jaadka soo dhoofinayo oo keenayso waxyaaba sidoo waa joojilay waddanka horumar gaarsiilay sababta noo raaci sababta waddanka bidiciisa daanay ka talinayaa ka talinayo marka waddanka inaanay ka fikirnaa laakiin mar qaar ina darawo keenaa la yaabana qowaba mamnuuc leh mar qaar dawladdu waa u baahan tahay inay dhax gasho lacag mamnuuc leh lacag la sameeyo darawada ada waalid waa sameeyay lacag soo dhawo magacaaga diris handarsan diris jiis masbalakh waayahay oo soo dhaweynaa su'aalo waxaa jirtay aan weydiinayay dhalinyarada halkaas sugo imaaday lacala waxaa noqotay madaxweyne hal maalin aflaad saac waxaa lagu dhahay waddankan hal waxaa ka mamnuuce maxaa mamnuuc leh wixii afar saac madaxweynaha ka mamnuuc la wixii aflaad saac madaxweyne ka dhigay ka mamnuuc sababta noo raaci sababtoo afar saac ma u filan baaniye wax badan ay waqti badan ay u filan ayaga mamnuuc leh iga bilaabi lahay soo dhawo magacaaga دكتور جرى نوين معقول من مقال من صوت الله من قبل يقال ويا دين وين مقع وين عشيقته من صوت الله من قبل يسرون يا من صوت الله من قبل يسرق يقانا دكتورنا ولا كسايان باني صح لا هو صاب لي دعوة دي واكو عيارته ويا سؤال جرتي ويدين إني تدوينال كان سوي ماذي waxaa lagu dhahay madaxweynaha tahay hal maalin ah haysta jaanisa waddankan waxaa ka mamnuucay hal wax ما بعرف كلا ليه هاي أمر مدحونا واي حمو نوع له وحبذنا ممنوع له والله هل كان مال حمو نوع له هل كان مالنا دروغة ممنوع له يعني واني هل كاس مال بس دروغة ممنوع له هذه دروغة وحدي ضدك مسوكين سببت نوراعي يا سببت أني دروغة ذني دليرة ذني قبادي شادي صح هذا ما سنتاي هذا من